سأقول وليجور حالتنا وليس ويس كتراني هذا الحمد لله على كل حال عبدنا سيدي بيقول لك هو فردي أسومها أو شقتكم ونقل وياه ما يوليكم ونقل نهاية نكها محمد محسنها ولا لا الدبي عدي ساسدان نقطة عندك نكها عبد محمد مرسيارته ولا دونتها مرسية محيا marka ninka la xisaabtano meel iska saar ku yiraahdo maxaad u difaacdaa caruurta un baan wax walba ugu dul qaadanaya Soomaalidu waxay ku maamahada qoor iyo qiiqiisa waa la isla tuuraa inta caruurta uga tagto ma iman kartaa aniga haddaba midaan kuu sheego maxaad ii sheegay oon ahayn ninkan waa jecelahay oo kama tagi karo ruuxii samraa sadkii helaa horta sow mahmaahdii may ahayn cabdiyo guriga ku fadhiya ayaa sadkaagu noqday sow maaha maya i dhegayso horta cadhada yareeyo anoo halkayga iska hurdaa cadhada soo adu imaad keenin saaka haddaba sheeko kale oo cadhada kaa jebisa ayaan kuu hayaa nayaahe waa lagu saafuray soo maaha acuudu billaah walaalay furniinku waa hawl shaydaan ka shaqeeyee i dhegayso samirku wanaagga uu dhalaan kuu sheegayaa bal ii sheeg sabir cabdi la ag jooga wuxuu dhalay wuxuu culimada ka soo ogaaday inay dumarku qabsan karaan shaqo xalaala oo ganacsi wuxuu ka soo ogaaday rag kale oo saaxiibadiya inay xaasaskoodu ganacsi ku jiraan deedna dee wuu garawsaday iminka wuxuu leeyahayba ganacsigii ku noqon marka darbiyada soo celiyey daacadna uu ka jabo wuxuu ku qabsan kari waayey ayuu kama dambays maryaney ku soo yidhi walaalay ninkaaga nacayb maan qabin adiguun baan kaa naxayey iyo awlaadda ilaahay idin siiyey oo halkeebaad wax ka bilaabi doontaa markaa xawaashkaygii baan walaal dib u cusboonaysiinaya aan kuu sheegay waxaa jira fikir maalgelin oon dhowaan maqlay maalgelin maxaya walaal waxaan maqlay inay baananku bixinayaan lacag yar oo dib isaga soo celinaysa muddo markaad joogto walaal maad ii geysid baanankaa haddaad garanayso khayr allaha ku siiyee laakiin adigoo bilowa kuma maalgelinayaan oo haddaayay maalgelinayaan ganacsatada yarada xoogaaga haysata uunbay amaah yar siinayaan markay amaahda wakhtigooda ku soo celiyaanna tukalo ka badan bay siinayaan waa wax wanaagsan aniguse waa inaan dib u bilaabaa ganacsigaygii soona gaadhaa meel layga caawin karo horta iminka maxaad lacag haysataa sideeda ku bilow iminka horta waxaan isleeyahay labadan dhagood ee dahabkaa oo aan ka iibsaday xawaashkii aad dib u iibistood ku bilowdi aniguna $50 ayaan ku siin doonaa insha allah soo wax kuu tari mayso الله مرياني عد كلها مانتا maalmahanba kulayl bay ahayde ma maanta maad aragtay cabdiyo maaniga bariyahan bacda hadda u baxay maanta xitaa socodkii waan kari waayeybe waa rune maanta xageed u lugaysa gurigii walaashay saaraan qabtay haa iiga waran inantaa waan ku ceebaysanahay oo umaan tegine walaal way nabad qabtaa anigaana kugu salaamay biyo ma haysaan sira qaboojiye haa way yaalaane bal intaanad maydhan aan ku warramo horta maxaa soo kordhay bal ii warran saaka subaxii baan fayso ku kalahay deedna arrinkii baan u soo bandhigay waxay igu tidhi walaal aniguna $50 oo lacag ayaan kuugu biirinaya dee sow maaha inaan hore u gollo hawsha haa labadeedoo dhagood ee dahabkaana iibi baan isleeyay waa si fiicane ayna hawshii dhismaha goobtaadii ganacsiga berri baan gallo waa saxe waxa kale oo ay igu tidhi maalgelin baananku siiyaan dadka ganacsiga yaryar ku jira ayaa jirta ee adu maxaad ka ogtay xaaji maalgelintaa waxba kama ogiye ma ganacsiyada yaryar ayaa la siinayaabay kugu tidhi haaya maxay kula tahay sow ma raadinno maalgelinta iyo xogteeda saxda ah نعم لا إله إلا الله محمد رسول الله ياسميني صلاة دي عصر وات اللي إضامي محدقك كقبانيسا hooyo waanigaa salaadii shaqadaba isu soo diyaarinaya waxaabaan moodi inaad yara seexatay alla hooyo miyaan seexan karaa shaqaabay sugaysee oo goormaad imika shaqada gelaysaa 4 galabnimo casar markaan saa u tukado waa inaan baxaa ka waran shaqada imika ma ku faraxsan tahay kol haddaad shaqaale cid u noqoto hooyo waad ku khasban tahay inaad ilaaliso wakhtiga iyo hawsha lagu xil saaray waa sax ilaa adigu mulkiilaad ahaan jirtay waad og tahay sharciga shaqada hooyo intaan salaada la gelin waxaan doonayaa inaan la hadlo macaamiishayda u baxay shaqaday geysay oo goormaa kugu wardabaysay maalinkii ay shaqaday geysay kadib ismaanu maqal bakaadhe baa hooyo inanta waan u duceeyaaye bal horta la hadal imika assalaamu calaykum walaaluba وعليكم السلام ياسمين ميا إيه ورن أبايو walaal nabad alxamdulilah u baxay baryaha kulamaan soo hadalay xaaladda ka waran ياسمين وان برواقيسنا الحمد لله نمعن كجرنا شغل هذيك ورن iminkaan isu sii diyaarinayay walaal hooyaa ila joogta oo markaan u sheegay inaad shaqada ii soo heshay aroor walba kuu soo ducaysa ما
maasha allah hooyo ducadeeda allaha noo aqbalo iyadana cimri iyo cibaado sana allaha siiya abaayo goor dhaweyd bay igu canaananaysay inaan qalad sameeyey markaan ku idhi inantii shaqaday geysay telefoon dambe kumaan celin maya abaayo hooyo u sheeg dhib ma jirto anigaabay ahayd inaan ku weydiiyo waxaad la kulantay yaasmiin aad baad u mahadsantahay ubaxeey kuma iloobi doono ha iga mahad celin abaayo waajib aan gutay abbasaas camal waa ii yeeli laheede saaxiibadaa khadreed ii geysayna waa qof macaan oo shaqaale ahaanba kuula dhaqmayn oo ku ixtiraamaysa waxay igu tiri baanad ogeynba oo ammaan ay xaggaaga saaxiib iga daa ammaan ma qaadi karee dhowr cushuun baan joogay dukaankee horta iyadaabay la soo hadasho oo waxay i dhahday yaasmiin waxayba igu soo xidhay macaamiil cusub iyo kuweedii hore ma intaasaan kala bakayli lahaa kalama bakaysheen waxa ay tiri oo kalebo yaasmiin macaamiisha raaligelinteeda aad bay u taqaanaa anigana hawdhan ayba iga furatay ubax walaal aad baad u mahadsan tahay ammaanaan isku ogeyn baad galabtay huwis waa mudantay ogow haddaba maamadana igu salaan haye walaal haye hooyana salaanta waan kaa gaadhsiinaya wakhtiguna wuu igu soo dhow yahay meekii faysal ahaa maasha allah codka taleefonku wuu isoo gaadhay salaantana ubax waan ka guddoomay waxa ilaahay kugu hagaajiyey hooyo dad wanaagsan waxaasna waa daacadnimada ogow weligaa alxamdulilah ilaahay baa ii soo diray hee hooyo iyo yaasmiin miyaad ii yeedheen ilaa goormay walaashaa kuu yeedhaysay miyaad hurudday hodan buu ku sheeko bartoo kamaba soo ag tegayo war kaale halkii iiga sii wad xisaabta diiwaangelinta alaabta iyo sida loo iibiyo iminka adigan diyaarkaaba shaqadiiba tegaysa haa markan salaada casar tukadaba haddaba aan jamaca la soo tukado laakiin ka waran haddaad caawa markaad fiidka soo laabato aan kuu dhigo salaada casar goor hore laga soo baxay xagad faysalo ka soo laabatay quruxay cawdubulayso masaajidku maan tegey oo masaajidka ma saacad baa lagu maqnaadaa 10 saacadood baa lagu maqnaadaa haddii la doono waa ku sidoo hodanay waxaan majacaylunbu kaa yeemse wax kalaad wadaa maxaan soo wadi lahaa aqalkanaad mar walba iga tegaysa cidladiisa kale xasudabe iminka anigaaba kula jooga haddaad cidlo dareento maad hooye iska ag fadhiisatid iyadaa ku sheekayn lahaydi wari aw ninka hooyadaama waxaad doonaysa marna ina xanuunkeeda iga sheekayso marna miya meynaanan garanahaynba oo sheekada miyigu miyaanay aqoon ku siyaadaysa ahayn faysalo waad isbeddeshay sheekadeeda inaad mabsuud ku noqotid ma rabtaa sideenan u rabin yahayeen aqalka kaa waayin waxaas kaftan baanu qaadanaya ama kaftan ka dhigo ama run ka dhigo haddaad maqnaataan waana maqnaanaya ogow oo halkeed ku maqnaanaysaa mooji naga hormari mikaaman baxaynaabe qorxa haddaba iiga daa ciyaarta miynaan heshiis ku gaadhin inaad aqalka ii joogayso dee waayahay aadna ila joog dhegayso hadday hooyeyna maqasho way yaabaysaa waxay odhan doontaa waa maxay reerkan isdilayahay idhegayso hadda soo yaasmiin shaqa may helin haa anna shaqa doondoon baanahay waa waxaan u baxayba waxaad ku talagelaysaa hadday yaasmiin mustaqbalka dukaan furato inaan anigu nala shaqayn doono insha allah ha la gaadho wakhtigaade iminka laftigeed halkanay shaqada ka heshay haddaan la sii joogjoogo aqalka fadhigiisa wii dhaamaadee faysal waad nagu adkaynaysaaye yaasmiin baan weyddiin doonaa hadday carwada shaqa caawimaad kaaga helayso faysal ow dhegayso illow wax walba nolosheenna waad aragtaa waxaad doonaysaan in ciidun dulsaarsaa ugu ahaano maya ma doonayo yaasmiin ku tiirsanaa mayno beriis qaraxaanna ma cuni karayne diinaka reergeenna gooni hayno ahaado kaasi waa ra'yigii yaasmiin soo jeedisay laakiin weli waxay ku xidhnaanaysaa inaan shaqo helo yaasmiin kala tegi mayne horta ma aqbasha inuu dherigeennu gooni noqdo halow assalaamu calaykum waalaykum wasalaam ikraan soo maha walaalo haahey waa kuma adi maxaa naga daalinahaysaa ikraan walaal waa faarax jaamac weeyaan weey faarax jaamac xasan walaal hadeer baan ku gartay raalli ahaw walaalo dhib ma leh aniguba codka maan garanaynin magacun baan hubinaya ii waran faarax galabta maxaan kaa iibiyaa kolleyba dharka dumarka keliya naloogu yimaadaaye ikraanay gabadhada mustaqbalka dhar ma ugu helaya dukaankaaga midda hadeer kula joogta iyo ta mustaqbalka labadaba waa loo helhayaa oo ikraanay yaa ku yidhi hadda mid baa la joogtaa anu mustaqbalun baan ka hadlayay keliya yaa kuu diidahaya afarbaba gursan ka dhaaye adigu ma ku jirtaa ikraanay dumarka afarta ogol faaraxow horta adiga ma ku jirdha ragga xaasaskooda u ogol inay ganacsadaan sidaan hadalkaaga ka gartay waxaa tahay dumarkaan jeclayn in lala guursado haa anigu waan u ogolaan lahaa xaaskaygu inay ganacsato fariid baaba tahe haddaba ii sheeg muraadkaad galabta ikraan bilo ula soo hadashay dukaanka maan doonayni adiga ikraan ahaan baan doonaya inaan arrin aabbaha ku saabsan kaala hadlo ma aabbahay warsame soota shaqada ka eridan adiga iyo aabbahaa walaal aabba isagaa shaqada iskaga tegay cidkama eriine bal hortay dhegayso laakiin ogaada aabbahay anigaa biilan kara waa runa waad biilin kartaaye bal isugan hadalka ku dhammeeye ma intaa waxaan hayn baa jidha walaal waxaa jira inuu aabba warsame dhibaato geystay weliba gaariga hooyadaa la socotay ku bureeyey miyuu iska bureeyey mise waxbaa ku kalifay horta wixii dhacayba anigu waxaan doonayaa aabbo inuu shaqadii kusoo laabto ilaan isagaa iskaga tegey
faaraxow boowe dhegayso aabbahay u malayn mahaayo inuu shaqadiina ku soo laabanahayo ta kale markuu aabbahaa hooyaday gaadhigiisa ku qaadahayo ma aabbahay buu ugu talagalay inuu ku digto ikraanay horta maan doonayn wicitaankayga inuu kaa cadhaysiiyo inaan arrinka nabad ku dhammeeyo iyo ogolow aabba warsamana waa nin wanaagsan inta aan ka aqaan adna walaalay raalli iga ahaw inaan adiga kugu caroodo ma aysan ahayn haabo halow edha maxaa ku dhacay ninkii la hadlaayay haddeer waraadanow balkaanay xisaab baa jidhe ikraan waxaan iibinay baan maanta soo ururnay ma soo qaataa laabtoobka maya horta waxaan doonahayaa inaan xisaabino dakhligayga intuu haa bishan ma waxaad u jeedaa qasnadda lacagta ku soo ururtay bishan haa soo ma wada haysid sow kama sii wanaagsana inaan kuu keeno qarashadii aan galnay oo dhan iyo waxaan iibinay oo dhan qarashada aan gallay maxaad ka wadaa ka waran haddaan daabaco alaabtaan soo iibinay wixii aannu sii iibinay lacagtaannu baanka dhignay iyo kharashaadka dukaankeenna biyaha korontada iyo adeegga guudba bal soo wada daabac iila kaalay markaa waa diyaar waa bilaha oo dhan soo maaha intuu dukaanku furnaa oo dhan bilbil baan kugu soo daabacayaa bishii dhammaatay oo keliya horta ii soo daabac waa tan bishii dhammaatay waawa keen waraaqaha kalena hooyaan u geynahayaaye ma wax khalad ah baad ku aragtay maye sooti hooye maalinkii dhowadlaad xisaabtiina farqi baa ku jiray soo baara qasnaji ahaan anigu wax farqiya ma hayo xisaabtuna dhammaanteed waa sax shakiga ha iga baxee waxaan oo dhan hooyan la tagahayaaye soo ima raacahaysid